Moogtahay inay kuwan yihiin dad yowsi layaab ku galay buuga dhacdooyinka aduunka. Midka ugu dambeeya ayaana in badan ka yaabin doona. Kow Shiridal Chilal. Ninkan waxaa lagu magacaabaa Shiridal. Wuxuu u dhashay oo ka soo jeeda dalka India. Wuxuuna buuga dhacdooyinka aduunka ku galay inuu yahay ninka ugu cadiyaha dheer aduunka, gaar ahaan gacantiisa bidix. Wuxuuna cadiyihiisa jarin laga soo bilaabo sanadii 1952 ilaa laga soo gaadho sanadii 2018, taasoo noqonaysa 66 sano. Waxayna gaadheen dhar ahaan dhan 29 feet. Wuxuuna sidaas ku galay buuga dhacdooyinka aduunka ee World Guinness Record. 2 Elin Davidson. Haweeneyda waxaa lagu magacaabaa Elin Davidson. Waxay u dhalatay dalka Scotland. Waxayna caan ku noqotay inay tahay haweeneyda leh daloolada jidheed ee ugu badan aduunka. Waxayna buuga Guinness World Record ka gashay markii ugu horeysay sanadii 2000. Tirada daloolada ay ku leedahay jidhkeedu waxay gaadheen 15,000 oo dalool. kumana ee ka wajiga oo kaliya, balse waxay ku faafsan yihiin madaxa, sanka, bishimaha, dhagaha, laabta iyo jidhka intiisa kale. Inkastoo dad badan ay u arkeen wax xanuun badan, Elnina waxay sheegtay inay tani u tahay qaab nololeed gaara. Waxayna sidaas ku gashay buuga dhacdooyinka aduunka ee World Guinness Record. 3 Wales Wong. Ninkan waxaa lagu magacaabaa Wales. Wuxuuna dhalasho ahaan ka soo jeedaa dalka Japan. Wuxuuna sameeyay sandwichka adduunka ugu dhuuban amba ugu caataysan, kaasoo xitaa aad la yaabi doonto cabirkiisa oo ahaa 5.12 millimeter. Wuxuuna sidaas ku galay buuga dhacdooyinka adduunka ee World Guinness Record. Haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo, 3 qof aan soo sheegay midka ayaa xoog kaaga yaabiyey? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. Ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile-ka saaranna aad subscribe dhahdo.